daawadayaal sidaad u jeedaan hadda waxa barbarkayga taagan qaar ka mid ah murashaxiintii caawa xafladooda shaacinta si wada jira loogu qabtay Mansoor Hotel ee Berbera Sucaad Carmiye Odawa waxay ka mid ahayd xildhibaanada caawa halkan shaacidooda lagu qabanayay iyadoo kaliya ayaan haweenka ahayd telefishinka Man TV oo kula kulmay hoolka shaacintu ka dhacday ayaan wax ka weydiinay dareenkeeda iyo sidoo kale filashada ay ka filasho 13 May doorashada la filayo inay ka qabsanto dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyn Sucaad Carmiye ku soo dhaw telefishinka caalamiga Man TV waan dhawahay aad baa mahadsantahay ugu horeyn waxaan ku weydiinayaa dareenkaaga ah 13 May doorashada la filayo inay dalka ka qabsanto bal ugu horeyn maxaad ka filaysaa doorashadaas waxaan ka filaynaa runtii guul isbedel degdeg ah because waxaan u maleynayaa maanta dadku iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo dalkuba inuu doonayo isbedel marka waxaan ku rajo weynahay dadku inay u codeyn doonaan isbedelka cusub dhalinyarada cusub dadka cusub ee maanta isu soo wada sharaxay marka shucuurteedu runtii aad u sareysaa rajo weyn baan ka qabnaa inaan codka reer saaxil helayno insha Allah bidmillaahi kariim waxaad ka sharaxan tahay xisbiga wadani bal maxaad xisbigaasi ku dooratay iyadoo ay jiraan xisbiye kale oo aad iska soo sharaxi karaysaa horta wadani saad u aragtaanba waa xisbigii mustaqbalka waxaanan doonaynaa meel ay jirto fursad isbedel laga samayn karo wax cusubna la keeni karo wuxuu markaa noola eg yahay oo aaminsanahay xisbiga wadani inuu yahay xisbi aanu hamigayga iyo meesha aanu higsigaygu yahay aanu gaarsiin karno annagana gaarsiin kara aad iyo aad mahadsan tahay taasi waxa ay Sucaad Carmiye Odawa oo kamid ah murashaxiinta xildhibaan ee u tartamaya golaha wakiilada ee Soomaaliland kana sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Cadarre Man TV Berbera